بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم. horta maanta waxaanu doonaynaa inaan ka jawaabno khudbadda madaxweynuhu ka akhriyay xafladda Frisoonka. Anagu xafladda kamaanu qayb gelin. waxaan uga qayb geli weynaa waxa weeye madaxweynaha ilaa uu doorashooyinka qabto wax shaqoon la yeelana wada shaqaan la yeelana ma jiriso. intaa waxa weeye horta waxa ugu daran marka qofka madaxda uu afkiisa iyo uurkiisu hadalkiisu yeelan waayo waa masiibo weyn weeye. qofka mas'uulka ah ee madaxda ah waa inuu qowlkiisa iyo ficilkiisu is yeesha. madaxweyne muuse labada sano hada dalka hayay khudbado ku akhriyay ficilkiisu isma leh. waa madaxweyne u horeeyayna soo mara inuu arkayno inuu wuxuu ku hadlayaa iyo wuxuu sameeyay kala duwan yihiin. doorashada wuxuu xilku ka saaran yahay oo mas'uuliyadda ku saaranta madaxweynaha asxaabta kama saarnay. laba sanadood waxaan doonaynay madaxweynahaas inuu doorasho qabto. marmarsiye ka dhigtay xusbi qura oo yidhi kuma kalsoonin guddidaas. hadduu madaxweynuhu daacadkeed doorashada uu qaban lahaa madaxweyne waxaan u sameynay concession badan baanu sameynay tanaasul siduu doonayay baa lanagu dhexdhexaadiyay ugu dambeyntii baarlamaankaa loo gudbiyaa la yidhi baarlamaanka uu ka hortegay baarlamaanku waa kii diiday nin aan sharciga u lahayn oo yidhahan waxa weeye la taliya baarlamaanka xagga sharciga uu yidhi suurtagal maaha. haddana waan u dulqaadanay tiisi baan u ogolaanay in 7 la magacaabo labana hadhowta lagu daro labada xisbi leeyihiin si uu doorashada haddana isku hortaago ayuu haddana xeerkii jabiyo xubin aan sharcigu sheegayin inaanu soo gelin xilkaa qaban ayuu magacaabay. marka madaxweynuhu wuxuu taswiirtay qorshu samaysay naftiisa ah oo ah baarlamaankuna ha kordho guurtuna ha korodho taaduna ha korodho doorashadiisu. waxaan u sheegaynaa madaxweynaha doorashada maanta deegaanka iyo baarlamaanka iyo kursigiisu way isku xidhan yihiin. haddaanay doorasho dhicin madaxweyne noqon maayo muuse ma noqonayo ma joogiyo runtaan idiin sheegaya. hadduu doorasho diido dumaraadii way dhimatay tallaabooyinkaada waan qaadna oo kursigiisa aanu sii hayn. anagu waxaanu samaynay oonu sidna guddi baan isu qabanay guddidaas oonu qabanay oonu ogolaanay uu mandate siiyey anaguna aan siinay kalsoonidii ayuu 3 arrimood ku dhaqaaqay. waxaan idin tusayaa inuu daacad ahayn. koow wuxuu sameeyey guddidii la isku haystay ayuu dhaariyey. laba wuxuu sameeyey kordhis baarlamaan oo 2 sannadood ah joogtiin in la isku haysto. 3 wuxuu sameeyey guddidii isdoorta oo guddoomiye ka dhiga xubintii la isku haystay. 4 qof ay doorteen 2 qofna ay ka hareen. taas waxay ku tusaysaa inuu muuse muran u taagan yahay laakiin dalkani muran oo maahay waa laga tashanaya. dhibaato aan maanta muuse hena dalkan male. daaga Somaliland iyo Soomaanta meel looga baqayaa shacabka reer Soomaaliland waan sheegaya. khatarta Somaliland maanta ku eegana waxa weeye muuse waa hawshiisii loo doortay ka baxay oo muran iyo garu joog. wuxuu yidhi waxaan casuumiyaa madaxweyne wuxuu yidhi waxaan casuumiyaa labada xusbi. waxaan leenahay anagu labadaas sannadood 10 jeer baanu madaxweynaha la fadhiisan. وسام كسر وتودن بيسهاد لحية لا تكيشون وحفلتي كيري وأنا كل منا وحنا نسوي كصباحية حبك الصباح كل كيس وحنا صباحية متشرد قرب وحنا جايني حير بيوكتان سمعني قد ده هذا أو حرقة ورئيس ومالنا هذا أو اسكوتشرتا ومضي ونن هاي ككوبيين كواسان السوقنا موسان روح الدمان ولا فريساننا ونهر تجينا
ma jirto madaxnimadiisana waan ka tashanaa hadduu maanta doorasho qaban waayo والسلام عليكم guddigii dhexdhexaadinta idinkiyo madaxweynaha halkee arrinteedu ku dambeysay waatan guddiga suginaa weeye isagu inuu la kulmay in kala ma habno laakiin anagu guddida aanu sharci hadduu ka tegey dee waxaan tegaynaa habkan shaqaanaya Somaliland waa la isku soo jiidi jiray guddiga heshiisay inta guddi baan sugnaa insha Allah taala khayran madaxweyne maanta ku sheegay in caasimadu saarantay saddex xisbiye ka heshiiway doorashada waxaan idin ku baaqay in labadina gudoomiye la tashan doono biyaa ka meed joojiseen kulanka madaxweynuhu ku baaqay maanta nacaasimadu isay saarantay anaga ma saarnay falaba sanado waxba qaban waay wadanka waxba ka qaban kar waay lana kulmi mayno guddaana ku sugnaa إذا ما هذا واحد شيء يصير إذا كتب قلي هذا واحد يدرك يقص بكتير صار ورنا أصحاب المعارض كي يدرك يقص قلي ما أدري وحي كل كل حبيبه والله قد شنو قديسة ما يقص واحد قلي جودي بانو صارناه جودي كورتجية جودي أندر ماين قرينية جودي ده حادث كا حقكوا إعدام الدون تايو كورتجية هرفر يسن ماينو